biyaal meel kastoo ha joogtaan oo diyaar garooba wararkeena biyaal qodobada ugu waaweyn wararkeena soo qaadan doono waxaa qayb ka maxaa ka jira in madaxweyne Dani oo saacadaha soo socda qorsheenay inuu iska casilo xilka madaxweynaha Puntland kuna dhawaaqo ololihiisa doorashada rasmiga ah iyo inuu u tartamayo xilka madaxweynaha yaa ka mid ah sirdoonada uu kula kulmay magaalada Nairobi dhaqdhaqaaqa Dani ee Nairobi uu ka wado ayaan xogo badan caawa in kaga hayaa madaxweynaha koonfur galbeedna wuxuu gaaray magaalada Abuja ee caasimadda Nigeria xilli la filayo qoorqoor iyo Dani in halkaas ay gaaraan kulamada qarsoodiga ah ee ka dhacay Nigeria iyo cid lala kulmayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa Nigeria xubnahaas ay ka wadaan nawadin soo gudbin doonaa waxaa kaloo saaxiibayaal qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay marxaladda siyaasadda Soomaaliya arrimaha doorashooyinka kulamada dhacaya ra'iisul wasaare Roble oo caqabado waaweyn mar kale wajahaya iyo waliba sidoo kale guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed oo ayna doortay gudoomiye xubnahaasi xilli doorashada aqalka sare la gudagalayo waxaa kaloo saaxiibayaal wararkeena qaybka dagaalo culus oo ka dhacay gobolkaasi Bay meelaha lagu dagaalamay iyo wararkii ugu dambeeyay dagaaladan oo idin soo gudbin doonaa Abiy Ahmed waxa uu sheegay in Ethiopia markan ay wajahayso xaalad halis ah in qarka u saaranta in Ethiopia ay burburto lana arko Ethiopia oo daciif ah hadallo u muuqda mid uu ku gubaabinayo dhinacyada dagaalka kala dhaxeeyo maanta uu jeediyay waa idin soo gudbin doonaa iyo xiisada u dhaxaysa dalalka la xiriira Imaaraadka iyo Sacuudiga oo mar kale cirka isku shareertay hadallo culus oo maanta saxaafaddu isku mariyeen labadani wadan Imaaraadka iyo Sacuudiga ay wax ka dhaxeeyaan caawayaan qeexi doonaa qodobadaas kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena ama wararkeena caawa qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe noo dhig gambaleelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada xogaha iyo waliba sheekooyinka gaarka ah halkan aan ku baahiyo habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba qodobadaas kuwa kale waxaas ku bilaabi doonaa dhaqdhaqaaqa madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani oo ka wada magaalada Nairobi caasimadda Kenya iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan in madaxweyne Dani laga yaabo inuu si rasmi ah u shaaciyo inuu iskaga casilo xilka madaxweynaha Puntland waxaa soo kordhaya wararka sheegaya madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani oo maalmaha soo socda ku dhawaaqi doono ololihiisa doorashada isagoo xilka Puntland si rasmi ah iskaga casili doona si uu xoojiyo ololaha doorashada xilka madaxweynaha maalmihii dambe waxa aad u sii kordhayay damaca madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani oo kaga jiro xilka madaxtinimada Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa ku sugan magaalada Nairobi shalay galab ayuu safar degdeg ah halkaas ku gaaray wuxuuna xalay la kulmay sirdoon ka socda dowladda Imaaraadka Carabta sirdoonka ka socda dowladda Imaaraadka Carabta waa nin sarkaal ah u qaabilsan Geeska Afrika iyo waliba arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyadoo inta badan diiradda lagu saaro wararka ugu muhiimsan ee siyaasadda Soomaaliya waxaana la soo sheegay madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani oo la kulmay laba kamida xubnaha sirdoonka u qaabilsan dowladda Imaaraadka Carabta kuwaas oo kala kulmay magaalada Nairobi kulankan oo ka dhacay qasri ku yaala magaalada Nairobi xalay waxyaabaha ugu waaweyn ee sirdoonka Imaaraadka ay u soo jeediyeen dowladda waa madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa qayb ka ahaa inuu shaaciyo ololihiisa doorasho dowladda Imaaraadka Carabta ay maalgelinayso wax walba oo ku baxaya mashruuca doorashada madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani xubnaha muqaabaraadka ayaa sidoo kale la sheegay madaxweyne Dani ay kula taliyeen in isla toddobaadkan uu iska casilo xilka madaxweynaha Puntland sidaa darteedna uu xoog iyo awood si uu ugu helo una u tartamo xilka madaxtinimada madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani ayaa la sheegay in damaca uu ku jiro xilka madaxtinimada ay mid aad u xoogan dhowrkii maalmood ugu dambeeyay isagoo safar ku tagay magaalada Kismaayo sidoo kale la qorsheenay safarka Nairobi kadib in safar uu ku tago magaalooyinka Jowhar Dhuuso Maraab iyo Baydhabo halkaas oo kula kulmayo hogaamiyaasha maamul goboleedyada waxaana sidoo kale la xaqiijiyay in xubnaha ka socda sirdoonka Imaaraadka Carabta madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani u ballan qaadeen dhaqaalo maalgelin dhanka doorashada ah wadamada Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa ah wadamada reer Carabeed ee si weyn ugu tartamaya tartanka doorashada Soomaaliya ayuu siyaasiyiinta qaarkoodna saddexdaas dalal ay yihiin kuwa ay u kala ordayaan si ay u maalgeliyaan laakiin waxa la sheegay in Qatar ay tahay wadanka kaliya ee taqaana qamaarka siyaasadda Soomaaliya ama ku qamaarta hal qof oo awoodida dhaqaale isku geysta taasoo suurto gelinaysa in mar walba ay ku guuleysto doorashada Soomaaliya halka dowladaha Carabeed sida Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayna ay yaqaanaan in laba qof ama saddex qof ay maalgeliyaan taasoo jahwareer gelin karta oo aysan aqoonin qamaarka hal qof in lagu kalsoonaado
laakiin wararka aan helin ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta oo falsafado badan ka baratay Qatar iyo waliba istiraatiijiyadda sanadkii 2017 ayaa la sheegay in hadda ay doonayso in qamaar ay sameyso Imaaraadka oo malaayiin dollar ay dul dhigto hal musharax waxaana loo badinayaa musharaxaas inuu noqon doono madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani oo hadda xubno ka socda muqaabaraadka ama sirdoonka dowladda Imaaraadka Carabta kula kulmay magaalada Nairobi musharaxa labaad ee Imaaraadka Carabta loo xaqlinayo waa Sheekh Shariif Sheekh Axmed inkastoo loo badinayo in hadda ay awoodiisa dhaqaale Imaaraadka isku geyn doonaan sidii Saciid Cabdilaahi Dani ugu guuleysan lahaa doorashada Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa la hadda la aaminsan yahay inuu isaga gacanta ku haysto xildhibaanada ka imaanaya Puntland taasoo Imaaraadku ku xisaabtamayaan iyo in sidoo kale Jubbaland ay saaxiibo dhow yihiin siyaasadda oo ka heli karo kuraasta ugu badan halkaas ka imaanaya asagoo dhinaca kale Puntland waa xubnaha ka imaanaya Koonfur Galbeed iyo waliba Galmudug iyo Hirshabeelle kula macaamilaya dhaqaalaha Imaaraadka taasoo meel fiican gaarsiin karta Saciid Cabdilaahi Dani waa sida ay aaminsan yihiin xubnaha muqaabaraadka ee sirdoonka u qaabilsan ee Imaaraadka Carabta haddaba markaan ka tagno sheekada Saciid Cabdilaahi Dani iyo waliba dhaqdhaqaaqii siyaasadda dhinaca kale magaalada Abuja ee caasimadda wadankaasi Nigeria asna waxaa ku sugan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Laftagareen ayaa Abuja u gaaray martiqaad oo ka xubno kamid ah dowladda Abuja waa dowladda wadankaasi Nigeria waxaana la sheegay in shalay gelinkii dambe uu gaaray magaalada Abuja ee dalkaasi Nigeria wararka ayaa sheegay isla maanta la filayo in magaaladaasi waa isla maalinta berri oo Talaada la filayo in magaaladaas ay gaaraan madaxweynayaasha kala ah qorqor oo Hirshabeelle waa qorqor Galmudug iyo madaxweynaha Puntland oo Nairobi ku sugan la sheegay inuu sii gudbi doono halkaasi kulan saddex geesood ayna hogaamiyaashan ku wada qaadan doonaan ila dhanka diblomaasiyadda oo ku dhadhow xubnahan oo ku sugan magaalada Abuja gaaran xubnaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa channelkeena u xaqiijiyay in qorshahani abaabulkan ay wadato dowladda Nigeria oo markan u muuqata inay ku soo biirto siyaasadda waxaana sidoo kale la soo sheegaya in saddexdan hogaamiye heshiis isbahaysi ay gaari doonaan sidii toddobaadkii hore wararkan ku baahinay labada maamul Puntland iyo waliba Galmudug ayaa hore heshiis u gaaray oo ku saabsan awoodda dalka inay sanadkan la wareegaan ama hadii madaxtinimada madaxweynaha ay helaan reer Puntland ay ka shaqeeyay sidii ra'iisul wasaare loo sii lahaa Galmudug labaduba hadda iskala shaqeeyaan oo ay isku biiriyaan awoodooda iyo xildhibaanadooda heshiiskan wuxuu ahaa mid hore loo gaaray Axmed Madoobe waxa uu wata Saciid Cabdilaahi Dani waana sababta ugu weyn shirkan loogu marmay hase yeeshee sababta Laftagareen loo geeyay magaalada Abuja ayaa waxa loo arkaa Laftagareen inuu yahay hogaamiyaha gacanta ku haya kuraasta ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka 77 kursi ayaana ka imaanaysa deegaanada Koonfur Galbeed marka la isku daro 275 xildhibaan taasoo ka dhigaysa in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Laftagareen uu yahay hogaamiye qudhiisa aan la yeereysan karin oo dhinacyadan ay doonayaan ballanqaadyo iyo dhaqaalaba loo ballanqaado taasoo sahli karta in si fudud Cabdilcasiis Laftagareen uu loo helo dhaqdhaqaaqiisa Laftagareen ayaa Abuja ku sugan isagoo la kulmaya xubno kamid ah diblomaasiyiin dowladda Nigeria iyo xubnaha maamulkaas waxaana la filayaa sida wararku ay sheegayaan in madaxweynayaasha qaar ee maamul goboleedyada dalka inay tagaan Abuja si ay qayb kaga noqdaan kulamada halkaasi dhacaya madaxweyne Farmaajo ayaa la soo sheegay inuusan ku qanacsaneyn dhaqdhaqaaqa maamul goboleedyada wararkii ugu dambeeyay dagaal culus ayaa ka dhacay gobolka Bay faahfaahin ayaa laga helaya qasaaraha dagaalkaasi dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa ka qarxay qaybo kamid ah gobolka Bay garan degmada Diinsore gobolkaasi Al-Shabaab iyo militariga Soomaaliya ayaana halkaasi ku dagaalamay dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno kamid ah ururka Al-Shabaab ay dhowr jeer hore weerar ku soo qaadeen saldhigyo ciidamada degmada Diinsore ay ku leeyihiin halkaasi dagaalka ayaana isku bedelay hubka noocyadiisa kala duwan iyo waliba daryanka madaafiic culus oo la sheegay in ciidamada ay ku garaaceen qaar kamid dadka ku nool degmada Diinsore ayaa waxay sheegayeen inay maqlayeen dhawaqa rasaas ay isku adeegsanayeen labada dhinac balse aysan kala cadeyn karin qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa dhankooda waxay sheegeen inay iska difaaceen weerarka kaga yimid dhanka Al-Shabaab isla markaana qasaare xoogan ay gaarsiin dhowr jeer hore ayaa Al-Shabaab weerar kaga fuliyeen degmada Diinsore ee gobolkaasi Bay hase yeeshee weeraradaas ayaa ah kuwa waxba natiijo ka soo bixin laakiin dagaalkan ayaa la sheegay inuu ahaa midkii ugu cuslaa ka dhacay halkaasi militariga ma jiro wax warar ka soo baxay oo ku saabsan dagaalkan iyo in sidoo kale qasaare dhankooda uu soo gaaray Al-Shabaab war ay ku baahiyeen baraha warkooda ay ku faafiyaan ayay ku sheegteen in ay weerarkan uu ahaa mid xoogan isla markaana ay
ku dileen sida ay sheegeen ciidamo ka mid ah ururka al-shabaab waa ciidamo ka mid ah kuwa dowladda Soomaaliya oo tir ahaan ay ku sheegeen ilaa 8 xubnood. ugu dambeyn saaxiibyada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa dagaal culus ka dhex qarxay iyadoo waliba labadan dal hadalla xanaf leh maanta warbaahintu isku mariyeen. Sacuudi Carabiya ayaa dalka sida weyn la xifaaltamay Imaaraadka Carabta ayaa isweydaarsaday hadallo kulkulul naadir ah taasoo dhaawici karta heshiiskii labada dal ee hore u gaareen. labadan dal ayaana ku boobay ururka OPIC plus la yiraahdo. Imaaraadka Carabta ayaa aad kaga soo horjeestay heshiiskii ay soo jeediyeen dalalka soo saara shidaalka ee ku jira OPC kaas oo sare loogu qaadayo wax soo saarka. khilaafka labada dal ee reer Carbeed ayaa sababay ismarwaaga weli aan dhaqan gelin ee isku dayo badan oo la doonay in lagu xakameeyo qiimaha shidaalka caalamka oo sare u sii kacay xilli caalamka uu ka soo kabanayo dhibaatada COVID-19 oo u geystay. wadamadan ayaa si weyn ugu lug leh shidaalka loo iibgeeyo caalamka waxaana Imaaraadka Carabta la soo sheegay inay isku dayeen inay ka baxaan heshiis lagu xakameynayo arrimaha shidaalka iyo waliba lacagiisa. waxaa iska soo horjeestay koox dhan iyo hal dal taas oo murugo leh xaqiiqdii waxaana sidaasi telefishinka Bolam u sheegay wasiirka tamarta ee Sacuudiga. wasiirka tamarta ee Sacuudiga ayaa u arkay dowladda Imaaraadka Carabta ay ka soo horjeestay dhammaan heshiisyadii la galay iyo waliba 23 dal oo ku boobay arrimaha shidaalka iyo inaan sare loo qaadin. wareysigan uu siiyay telefishinka Al Arabiya Amir Abdulaziz ayaa ugu baaqay Imaaraadka Carabta inay xakameeyaan oo tanaasul ay sameeyaan ka hor inta la gaarin shirka lagu ballamay. kooxdan oo la magac baxday OPC plus ayaa soo jeedisay inaan wax sare loo qaadin shidaalka loo iibgeeyo dalalka caalamka waxaana ay sheegeen in bisha Agoosto ilaa December inta laga gaarayo shidaalka uusan dhaafin qiimo dhan $2 milyan oo dollarka Mareykanka oo suuqyada caalamka loogu iibgeeyo. si kastaba Imaaraadka ayaa doonaya kaliya in sare loogu qaado arrimaha la xiriira shidaalka ilaa inta bisha Agoosto halka Sacuudiga ay diidan yihiin. Sacuudiga ayaa xulufo dhow la ah dowladda Mareykanka halka Imaaraadka Carabtana saaxiibtinimo dhow ay kala dhaxayso Iiraan waana farqiga u dhaxeeya. Imaaraadka Carabta ayaa dalbanaya cadaaladda la xiriira heshiiska la gaaray iyo in sidoo kale la simo dhammaan heshiisyada wadamada qaliijka ay ku jiraan. hadallada kulkulul isweydaarsadan Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa naadir ku ah bariga dhexe waxaana la sheegay in khilaafkan uu si kala fogeynayo xaaladda bariga dhexe ka jirta oo aad u sii sarakacaysa. warbixinadan ayaan ku soo koobaynaa saaxiibayaal.